kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Waa Media fadlan haddii aad ku cusub tahay bartan YouTube-ka aan kula nahay subscribe saar markasta waxaan idinku soo gudbinaa war wixii dunida dacallada ugu dambeeyay qodobada maanta aad ku daawan doontaan warkeenana waxa ugu waaweyn madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si dadban waxa uu sheegay in muddo kororsi uu doonayo shirka Dhuusamareeb ka dhici doono oo muuqata in natiijo la'aan lagu soo kala tagi doono ciidamada dawladda oo shabaab ka soo furtay dhalinyaro la sheegay in al-shabaab ay haysteen Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo sheegay in madaxweyne Farmaajo dalka uu doonayo inuu ka abuuro qalalaase amni iyo mid siyaasadeed qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena Waa Media aad ka daawanaysaan waa tahay dhageystayaal qodobadaasi aan idiin sheegay oo faahfaahsan ku soo dhawaada fadlan haddii aad ku cusub tahay bartan YouTube-ka aynu ku leenahay subscribe saar madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya hortagay isagoo halkaasi ka jeediyay khudbad nuxurka ugu weyn ee ahayd in loo fasirtay in madaxweynuhu uu doonayo in muddo kororsi ay u sameeyaan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya isagoo baarlamaanka ku beerlaxowsaday inay yihiin cidda ugu sareysa ee dalka go'aan ka gaari karta arrimaha dalka ayna yihiin kuwa aan la loodin karin go'aanka ayagu ay qaataan ay qasab tahay in la raaco khudbadda madaxweynaha ayaa waxa ka dhadhamayay in uu doonayo kaliya in madaxa uu geeyo shirka Dhuusamareeb isaga oo aan rabin in wax natiijo halkaasi ay ka soo baxdo baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayuu u sheegay wax kasta oo halkaasi ka dhaca in uu dib ugu soo laaban doono iyaguna go'aanka ay ka gaari doonaan siyaasiyiinta iyo dadka siyaasadda falanqeeya ayaa waxa ay sheegeen in madaxweyne Farmaajo kadib marka uu ka soo laabto magaalada Dhuusamareeb uu damacsan yahay in baarlamaanka uu sheego Dhuusamareeb waxa ka dhacay in aysan ahayn wax dadka iyo dalkaba u cuntama iyaguna ay go'aan ka gaaraan iyaga oo loo badinayo in madaxweynaha ay u sameeyaan muddo kordhin 2 sano ah si ay u dhacdo doorasho qof iyo cod ah si kastaba ha ahaatee shirka magaalada Dhuusamareeb ka dhici doono ay isku imaanayaan madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa waxaa jira walaac xoogan kaasi oo dadka siyaasiyiinta ay ka qabaan in shirkaasi aysan ka soo bixi doono wax natiijo ah oo lagu wada qanco waa tahay daawadayaal Waa Media ayaa naga daawanaysaan fadlan haddii aad ku cusub tahay bartan YouTube-ka aan ku leenahay subscribe saar dadka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta ayaa aad ugu dhoondoloola shirka Dhuusamareeb ka dhacaya iyaga oo ka sugaya in halkaasi ay ka soo baxdo natiijo wadar ogol ah oo la isla fahmo nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta daawadayaal Waa Media ayaa weli naga daawanaysaan fadlan haddii aad ku cusub tahay bartan YouTube-ka aynu ku leenahay subscribe saar si markasta aad ula socotid wararka dunida dacaladeeda ka dhacaya ee aan halkan soo dhigno markana ururka al-shabaab ayaa waxa laga soo furtay dhalinyaro ay la sheegay in ay haysteen ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ciidamada xoogga dalka qaybtiisa kumaandooska ee Tanab ayaa howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen degmada Kuntuwaare iyo gobolka Shabeellaha Hoose waxa ay ku soo furteen 33 carruur ah oo aan qaangaar ahayn kuwaasi oo ay si qasab ah ugu haysteen halkaasi ururka al-shabaab iyagoo la sheegay in waalidiintooda ay ka wateen ciidamada ayaa markii ay la wareegeen gacan ku haynta degmada waxa ay tageen xerada lagu hayay carruurta iyagoo markii ay soo furteen si nabad ah ugu wareejiyay heeladooda sidoo kale howlgalka oo bartilmaameedkiisu ahaa horjoogayaal iyo rag ka tirsanaa ururka al-shabaab ayaa lagu qabtay dhowr ka mid ah hogaamiyaasha ururka al-shabaab inta howlgalka ay ciidamadu ku guda jireen ay heleen xogo dheeraad ah oo ku saabsan qaabka iyo goobaha ay ururka al-shabaab ka dagaalamaan ama meelaha ay miinooyinka ku sameeyaan sidaasi ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya markana hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah hogaamiye aad inta badan u dhaliila dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo hoggaankeeda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu doonayo in dalka uu qalalaase geliyo arintaasna ay dhibaato weyn ku tahay shacabka Soomaaliyeed qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu sida tan ku soo qoray madaxweyne Farmaajo mowqifkiisu waa iska cad yahay safarkiisa Dhuusamareeb waa Gacmo Daalis iyo Garnacleysi
haddii uusan golaha shacabka siraynin sidii uu horay xukuumaddii iyo ra'iisul wasaarihii jiray ugu siray oo awoodda uu uga tuuray. Farmaajo waxa uu inkiray jiritaanka aqalka sare, kaalinta ay wakiilka uga yihiin dowlad goboleedyada waxa uu siiyey golaha shacabka, waxa uuna sidoo kale ku xadgudbay awood qaybsigii siyaasadeed kadib markii uu diiday inuu magacaabo ra'iisul wasaare soo dhisa xukuumad xilliga kala guurka ah kaasi oo hogaamiye xukuumaddaasi. Hadalkiisa waxa uu ahaa aniga ayaa labadaba isku ah. Madaxweyne Farmaajo nin dhowraya heshiis lala galay ma aha, sababtoo ah markii ay Dhuusamareeb 2 soo dhamaatay waxa uu riday ra'iisul wasaarihii. Nin dastuur iyo sharci tixgelinayana ma ahan, sababtoo ah waxa uu oggolaaday sharci darradii lagu riday xukuumadda isagoo magacaabay ra'iisul wasaare xil sii haynaya oo aan dastuurka meel uga qorayn, sharciguna uusan oggolayn. Farmaajo shirka Dhuusamareeb inta uusan furmin ayuu irdaha u soo xiray, cid walbana waa ay og tahay in golaha shacabkuna uusan yeeli doonin waxaan muddo kororsi ahayn. Haddaba sida kaliya oo heshiis lagu gaari karo, doorasho wadar oggolana lagu qaban karo, xilligeedana ku dhacda, waa in la helo xukuumad la aamino iyo damaanad qaad caalami ah oo la isku halayn karo. Waxaana muuqatay in madaxweyne Farmaajo uusan weli waana qaadin kuna kadsoon yahay dulqaadka dadka oo uu doqonnimo iyo tabar la'aan u haysto. Ayaa madaxweyne Farmaajo waxa uu doono samaynayaa, ma jirto meel badan oo uu ku sii dhuunto, maalmihiisu waa ay tiro yar yihiin, ayuu soo qoray hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur. waa tahay daawadayaal Waa Media ayaa naga daawanaysaan warkeena intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa. fadlan haddii aad ku cusub tahay bartan YouTube-ka aan ku leenahay subscribe saar si mar kasta warka ugu horeeya aad noqoto qofka u hela.